Addis Ababa cabsi weyn ayaa ka taagan caawa. Faano waxay bilowday qaarijinta saraakiil waaweyn. Magaalada gudaheeda ayaa la isku dilayaa caawa. Saraakiil muhiim u ah Abiy ayaa lagu dhex joogtaa Addis Ababa. Wararkii ugu dambeeyay dagaalo culus oo waqooyiga Itoobiya ka socda. Waanu eegi doonaa Abiy maxaa ayuu ka yiri laamaha ammaanka ee dowladda Itoobiya sidee u arkaan dhibaatooyinkan ka bilowday magaalada caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waqooyiga Itoobiya TPLF ayaa markaan dagaalka ku soo biirtayna waanu eegi doonaa aragtidiina qaybta hoose ee comment-ga ayaad inoogu reebi kartaan saaxiibayaal soo dhawaada. Halka waa muuqaalka TV. haddii aynu ku bilaawno magaalada caasimadda ah ee dalka Itoobiya Addis Ababa caawa cabsi weyn ayaa ka jirta kadib markii la soo wariyay in saraakiil badan oo ka tirsan jabhadda hubeysan ee Faano halkaasi ay tageen oo ay dileen saraakiil u dhow Abiy. maanta ciidamada militarigu waxay howlgal ka sameeyeen magaalada caasimadda ee Addis Ababa waxaana ay sheegeen in ay ku raajoogaan xubno dil geystay kuwaas oo cabsi weyn ay ku abuurtay bulshada kale. maalmihii ugu dambeeyay Abiy waxa uu ciidamada booliiska militariga iyo dhammaan qaybaha kala duwan iyo kuwa sirdoonkuba amray in dadka taageersan Faano gacanta lagu soo dhigo la wareysto haddii aysan ayagu ka laaban go'aankaasina xabsiga loo dhaadhiciyo. maalmihii ugu dambeeyay waa la ciribtirayay dadka taageera xitaa Faano Jaanis ma haysan waa la dhibaateynayay dhib ayayna la kulmayeen laakiin Abiy ayaa durbaba qaatay go'aankaas in uu meel saaro jabhaddan iyo wax cid walba oo taageersan waxaana arrintaasi durbaba ay noqotay mid suuragal noqota maadaama uu Abiy ciidamadiisu amray in la xiro dhammaan dadka halka ku sugan. dad aqoon-yahano ah siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno kale oo bulshada u ololeeya dhammaantood xabsiga ayaa la dhigay. magaalada Addis Ababa ayaa lagu xiray. taasi waxay keentay in jabhadda hubeysan ee Faano ay dhalinyaro u soo diraan magaalada gudaheeda kuwaas oo dilal ka geysanaya magaalada caasimadda ah. waxay sheegteen inay dileen saraakiil muhiim u ahaa Abiy oo xogaha la wadaagi jira kana tirsanaa kuwa sirdoonka. marka laga soo tago dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya magaalada caasimadda Addis Ababa ayaa xudun u noqonaysa maalmahan dhibaatooyin iyo weeraro xiga oo ay fulinayaan xubno muhiim oo muntidiin ah oo ay militarigu u arkaan inay ka tirsan yihiin Faano ama sidoo kale jabhadaha hubeysan ee gobolka Amxaarada ka dilaacay kuwaas oo hadda u arka haddii ay tallaabooyin kala qaadaan dhinacyada kuwa ay isaga dhici karaan oo ay iska waabin karaan. laakiin sheekadu meeshaas ma jirto oo TPLF waxay leedahay haddii anagu wakiil ahaan laga dhigto jawaab ayaan bixin doonaa wayna arki doonaan cid walba oo annaga naga soo jeeda ay yiraahdeen. dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa war xasaasi ah ka soo saaray weerarkii xoogganaa ee shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ku yaala deegaanka Cusweyn ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. weerarkan waxa uu ku bilowday qaraxyo waxaana la rumaysan yahay in lagu laayay askar tiro badan sidoo kale waxaa lagu qabsaday hub iyo gaadiid dagaal oo intaba ay lahaayeen ciidamada dowladda. Shariif Sheekh Axmed oo hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ayaa marka hore tacsi u diray ehelada saraakiisha iyo askartii lagu dilay weerarkaas. waxaan tacsi u dirayaa ehelada ciidamada iyo saraakiishii ku geeriyooday weerarka argagixisada Al-Shabaab ay ku qaatay deegaanka Cusweyne. waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa in uu u naxariisto geesiyaasha naftooda u huray difaaca dalkooda dadkooda iyo diintooda ayuu qoraalkiisa ku yiri madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed. intaa kadib madaxweynihii hore ee dalka ayaa dalbaday in baaritaano madax bannaan lagu sameeyo qaabka loo maareeyay weerarkaas maadaama uu dhaliyay khasaare xoog leh oo weyn oo soo wajahay dhinacyada ciidamada militariga Soomaaliya. Shariif ayaa si gaar ah uga dalbaday guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya inuu dabagalo falkaasi oo uu tilmaamay in lagu dilay askar badan. waxaanu ku baaqayaa in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo qaabkii loo maareeyay weerarka argagixisadu ay ku qaaday deegaanka Cusweyne. waxaanu si gaar ah ugu baaqayaa guddiga difaaca ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu baaris dhab ah ku sameeyo sida weerarkaasi ciidamada badan noogu baxeen uu u dhacay iyo saraakiishii u xilsaarneed aagaasi ayuu raaciyay mar kale. sidoo kale Shariif Sheekh Axmed ayaa hadalkiisa sii wata waxaana uu bogaadiyay guulaha ay ciidamada xoogga dalka ay gaareen dagaalka Al-Shabaabna ay ka gaareen gaar ahaan qabsashada Ceelbuur. dhinaca kale waxaanu bogaadinaynaa ciidamada xoogga dalka ee waa ku guuleystay dib u xoreynta degmada qadiimiga ee Ceelbuur iyo deegaanada kale ee hoostaga gobolka Galgaduud ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo ay kooxda Al-Shabaab ay sheegasho culus ka soo saartay weerarkii Cusweyne ka dhacay waxaana ay tilmaamtay inay cagta marisay 3 saldhig oo ku yaala halkaas isla markaana ay qabsadeen hubkii iyo gaadiidkii halka yiilay. sidoo kale waxay intaasi ku dareen in ay dileen in ka badan 178 askari sida ay ku sheegteen bayaanka ay soo saarteen oo lagu baahiyay internetka inkastoo intaas oo dhan ay been tahay.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda guul ka sheegatay dagaalka oo ay la gashay Al-Shabaab waxaana ay shaacisay inay ka hortageen weerarka ay ku soo qaadeen deegaankaasi waxaana gabi ahaanba loo diiday dagaalamayaasha Al-Shabaab inay qabsadaan deegaanka ama saldhigii ay ciidamadu ku sugnaayeen taasi oo suuragal uga dhigi weysay dagaalamayaashii Al-Shabaab in ay gudaha u galaan saldhigan. dhanka kale ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabelle ayaa maanta ka hortagay dibadbax la filayay inay ka dhacaan magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho waxaana lagu waday in banaanbaxyadaasi lagu taageero sheegow loogana soo horjeesto xirigiisa. Muqdisho waxaa wadooyinka waaweyn saakay la soo dhoobay ciidamo ka tirsan kuwa biliiska Soomaaliya si ay kaga hortagaan dibadbaxa beesha Jareerweyne oo ka gadoodsan xariga loo geystay generaalkooda oo dhawaan lagu soo xiray dagaal ka dhacay degmada Dharkiinley. ciidamada oo daadsan wadooyinka ayaa saaka lagu soo waabariistay taasi waxa ay keentay in uu baaqdo dibadbax la filayay oo abaabulkiisu uu ka socday caasimadda. xubno ka tirsan abaabulayaasha dibadbaxan oo aynu la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyay inay baajiyeen banaanbaxooda ayna u joojiyeen sababo amni dartood. dhanka kale waxaa sidoo kale laga hortagay dibadbax la mid ah kan oo ka dhici lahaa magaalada Jowhar kadib markii ay howlgal sameeyeen booliska Hirshabelle. booliska ayaa soo qabqabtay ku dhawaad 100 qof oo u badan dhalinyaro kuwaasi oo ku howlanaa dibadbax looga soo horjeeday xiriga Generaal Sheego Axmed Cali oo Muqdisho ku xiran. ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan tallaabada ay maanta qaadeen. arrintan ayaa daba socota buuqa ka dhashay xariga janankan oo ay si weyn ugu caroodeen beesha Jareerweyne oo ay muhiimad gaar u leeyahay jananku waxaana uu ka soo jeedaa isla beesha kaasi oo loo haysta eedeymo culus sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto arrinta sheegow balse waxaa loo badinayaa in sarkaalkan maxkamad la soo taagi doono si loo galo kiiskiisa loona baaro. arrintaas ayaana noqotay mid hadalhayn badan ay ka dhalato oo ay bulshadu isweydiisay maadaama ay hadda qorsho u ahayd in dibadbaxyo waaweyn ay dhacaan. maalmihii ugu dambeeyay beesha Jareerweyne waxay ku faanaysay kuna goodinaysay in ay dhigi karto banaanbax weyn oo ay ka soo qaybgalayaan malaayiin qof laakiin taasi waa ay rumoobi weysay waxaana hadda u muuqataa in beeshani ay banaanbaxyadoodii baajiyeen oo ay dib u dhigeen oo ay rabaan in ay kula dagaalamaan goobaha ay joogaan. taasi waxay ka dhigan tahay in beeshani ay rabaan in barnaamijyada ay sii wataan. ciidamada waxaa lagu amray inay joogaan wadooyinka Muqdisho dhammaan wadooyinka soo gala magaalada kuwa bartamaha magaalada iyo qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho ee muhiimka loo arka sida wadada Lambar 4 qaybo ka mid ah wadada 21 Oktoobar jidka Maka al-Mukarrama iyo sidoo kale goobo kale ayaa ciidamadu la dhigay waxaana dhammaantood ay u muuqdeen kuwa u diyaarsan ka hortagga khatar walba oo soo wajahda iyagoo cabsi weyn ka muujinaya in dadka dibadbaxyada dhigayo ay saameyn ku yeeshaan ciidanka waa booliiska ee howlgalka loo wakiishay. guddaan saxaabir halkaas ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doono nabadgelyo.